si gaar ah waxaan uga yar hadlayaa imtixaankii shahaadiga ahaa fasalada 8aad ee dugsiga dhexe iyo fasalada 4aad ee dugsiga sare waxay wasaaraddu ku soo kordhisay runtii loona baahnaa in horeba loo isticmaalo ardayda imtixaanka form 4ka u fadhiisanaysa iyo eeyadka had iyo jeer ardaydaasi mar alla markay form 4 gaadhaan ama kuwa kale eeyad gaadhaan inta badan in yaro iskuulaha de iyagu dadaalay mooyee ardaydaasi imtixaanka finalka iskuuladoodu gelayaan kamay qayb qaadan jirin waxay wasaaraddu ku soo kordhisay markaa oo compulsory laga dhigay inay form 4ka iyo eeyadkuba hadduu ilaahay idmo intaan imtixaanka form 4ka aan la gelinba imtixaanka way la soo gelayaan iskuuladooda waa in iskuulka iyagana wuxuu noqonayaa tijaabo tayadoodana kor buu qaadaya waxana wasaaraddu waliba aaminsan tahay in talaabo laga qaado ama imtixaanka form 4kaba lagu xujeeyo hadduu soo geli waayo imtixaankii iskuulka ee form 4ka iyo eeyadka arrintaasina waa arrin aad loogu baahnaa in badan oo horena meelo badan baan runtii ka sheegnay waayo waxa weeye ardaydii sidii nin tacliintiiba dhameeyey mar alla markuu form 4 noqdo ama eeyad noqdo waxaad moodaa iskuulkiina kama amar qaadanayo duruustiina uu iskaga tegayaa wuxuu leeyahay anigu imtixaanka finalka imtixaanaadka waxaan sugayaa wasaaradda ardaygu waxaa la rabaa inuu arday ahaado ilaa intuu imtixaanka eeyadka iyo ka form 4kaba hay ka baxayaan sidaa awgeed arrintaasi waa compulsory arday waliba ha ogaado waalidkuna ha ogaado ardaydu intaanay annaga imtixaankii shahaadiga ahaa aanu ardaygu u fadhiisan waxay iskuuladu noo soo gudbin doonaan ardayda u fadhiisatay imtixaankii form 4ka iyo eeyadka oo runtii noqonaysa markaa ardayga isagoo imtixaan ka soo baxay ayuu haddana imtixaan kale u diyaar garoobaya markaa maskaxdiisii way foojigan tahay way u soo jeedaa waxa weeye way bisisay marka laakiin hadduu ardaygii markuu form 4 noqdo bay iskaga tegay meeshii iskuulkii maalintaa form 4ka waa naga daysla kadeedana waxa weeye mobil iyo koox meel shaah loogu kariyo la yidhaha halkaa ka soo halwiya oo soo dira oo dee wax inaanfacaya aan ahayn waayo waxa weeye dhiida ad keento eed adigu qalinkaaga ku keenta waxay adduunyo aakhiraba ka qiimo badan tahay ee star aanad adigu lahayn oo mataqaanaa bahalkan inkaarta ah lagugu soo diray oo lagaagaga soo shaqeeyey wax alla waxay tahay waana naftaadina waad khiyaamaysay waalidkaagii baad khiyaamaysay ummadaadii baad khiyaamaysay waxa kalood ku gaftay nebi maxamed calayhi afdal salaatu wasalaam wuu inaga mamnuucay qishka man qashanaa falaysa minaa buri ninkii yacni qishkaa nagu sameeya naga mid maaha markaa daliilad u haysataana ma jiro waxaa laga yaabaa inaad markaa shahaadadaad xaq ulahayn inaad qaadatid waxaa laga yaabaa shaqaanaad xaq ulahayn inaad heshid dee lacagta kaa soo gasha bal wadaadada hala weydiiye siday tahay xaalkeegu marka waxa weeye wax kuu fiican oon ardaydana waan ahaan uga faa'iidaysanaya waxa qiimo kuu leh haddii adigu aad keentid d aad leedahay c aad leedahay waxaad adigu aad leedahay ayaa ka qiimo badan wax ergisa ah ardayow jiitikan aynu ka korno maalin lagu faaniyaa ama lagu ammaanaa wax qiimo leedahay ma jirto oo la yidhaha hebel wanku u galay iskuulkoogii ee star buu haystaa laakiin adigu xaqiiqda dhabtaa waad ogtay waar ee starkaa maadigaa leh mise waxa weeye bahalkaasaa lagugu soo diray inkaarta qaba oo dabadeed waad ka naqishay dee waxaad leedahay maaha sanad walba intaasoo moobil baanu haynaa oo halkaa xafiiska imtixaanaadka afkaa haya marka waxa weeye waa khasaare hagoogan naftaada inaad khiyaamaysa marka waxaan ku talin lahaa iskuulkaagu imtixaankaa uu qaadaya form 4ka iyo eeyadkaba ah practice buu kuu noqonayaa soo gal kaa isku ogow intaanad imtixaankii kale ee GC-ga aanad u imanba oonad finalkii examinationkii xafiiska imtixaanaadka qaranku qaadiya aanad sooba gaadhin waa tijaabay kuu tahay isa sii eeg maths maxaad ka keentay science maxaad ka keentay bal maado walba marka waxaa laga yaabaa marka haddaad aragtid ida week aad ku tahay sabjegyada qaar dee intaasaad samaynaysaa mataqaanaa dadaal adiga saaxiibada marka waxa weeye saasumunu dalkeenu horumar ku gaari doonaa waxa weeye dalna waxa horumariya waa tacliin laakiin haddaynu ku tartanno uun inay hebel baa u sarreeyey iyo hebel baa u sarreeyey wax alla wax qiimo oo ka dambeeya ma jirto nafteenanu khiyaamaynana waxaynu rabnaa inaad arday bright oo fiican inoo soo gasho runtii ardaydana waxaan hawada u marinaya runtii ilahay waxaan uga baryaynaa dhammaanteenba inuu inaga dulqaado ardaydana inuu caafimaad ilaahay ku wada gaadhsiiya imtixaankooga ardayda form 4rada iyo eeyadka iyo mid walba ilaahay Soomaaliland waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay abaartana inaga dulqaado aafadana inaga dulqaado
innagana waxa fiican in walba markaad keligaa tahay inaan is wada cafino oo ilaahay barino waxaan waxa weeye waa ciqaabo marka waxaynu kaga gudbi karnaa toobadda in la badiyo nin walba adiga isoo walaalka cafi in adeerka cafi adana waa kan doorashooyinkiina waa tala soo baacsanayo waxa fiican waxa soo dhani inuu afka ahaadon uurka tagin uurka aynu ka ilaalino in wax la isku qabto haddaynu rabno inuu ilaahay roob naxariis badanna ina siiyo aafadana inaga dulqaado intaasaan ku talin lahaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh